cabdiqaadir ilaahay khayraad siiyo wax badan oo taariikhda iskuulka ka mid ah oo goojoog ahaa iyo in badan oo dee aqoon u leeyahayba waa inooga warramay iskuulkuna waa runtii 2013 ayuu noo yimid iskuulka kusoo biiray iskuulkana waxaa la aasaasay 2004 bay ahayd oo isagoo xilligaa ma joogin oo saasaanu maaragtay u qiyaasay ilaa 8 meelahaas ugu qiyaasay runtii laakiin waxay 2004 xilli ugu horeysay la bilaabay iskuulka bilowgii ugu horreeyay aan aasaasnay waa muddo imika aan ku qiyaaso 18 sano gaadhaysa iyo waxoogaa intaaba marxalado badan buu soo maray iskuulku qaybo badanna uu nagala qayb qaatay cabdiqaadir ilaahay khayraad siiyo isaga tiimkiisii iyo ardayda kaleba dhammaan marka iskuulku markaan soo ururiyo barnaamijkiisu wuxuu ku soo ururayaa un laba qaybood qayb aad baran doonto xirfadda aad naftaada ku difaacayso iyo qaybta labaad oo caafimaad ah oo dhanka jimicsiga ah daa walbana way leedahay sida cabdiqaadir sheegay daada yaryar iyo daada waaweynba waa loo wada baahayay oo qof kastaaba kama maarmo jimicsi iyo naftiisa inuu ilaaliyo oo uu barto difaaca nafta dadkana waxaan kula talinaynaa ardayda joogta iyo dadka kale ee bulshadaba in aqoonta noocan oo kale la dayactiro maadaamay daruuri tahay oo xataa waxay ka qayb qaadanaysaa qofka tababaran nidaamkan bartaa in uu noqdo qof degan oo xasiloon oo aan xataa gacantiisu aanay fududayn sida marka kale ee suuqa la joogo ay dadku u dhaqmaan aanu dhaqmin oo dul qaadanaya sabraya wax badan iska dhaafaya taana waxaa sababaya tababarka iyo xirfadda uu baranayo oo ugu wacan markuu qofkii tababartay uu nidaam barto ayuu noqonaya qof xasiloon oo isku kalsoon marka waa muhiim in bulshadu ay ku baraarugsanaato isla markaana ay waqtigooda waqti badan baa iskaga luma maaragtay dee maqaaxida iyo meelaha iska jooga marka waqtiyada in la qorsheeyo qof kastaaba uu ku dadaalo caafimaadkiisa uga shaqeyn lahaa xirfadda noo baran lahaa taasi waa taa qolooyin kaloo iyaguna aan qorsheyn sida cabdiqaadir sheegayna way jiraan oon ugu talagalnay iyagana maadaama dadka waaweyna ay u baahan yihiin inta ogna ay iska yar tahay inta aaminsan jimicsiga u baahantiina ay aada u yar tahay oo aada u fahamsadeen xataa hadday og yihiin in jimicsi u baahan yihiin aanay wax jadwala iyo meel ay ugu haagaan toona aanay garanayn inaan u diyaarino galaaskii ay ka faa'iidaysan lahaayeen sida naftooda u ilaalin lahaayeen miisaan badan iyo jirkooda kala daata labaduba aanay imanin taasna waa taa haddana waxaynu gudbi doonaa xafladda intii noo hadhay saasay xafladdu ku dhan tahay waxaan bilaabi doonaa ardaydii qalin jebisay inaan abaalmarinadii iyo shahaadooyinkooda aan guddoonsiino inta waqtiga noo hadhay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu برخد عبد الرحمن برخد حسين ومقن يهي وركا معلنك هو عندنا إن شاء الله تعالى حسن حبيب أحمد
محمد عمر حمدلي. خضر عبد الله إسماعيل. مختار عبد الله إسماعيل. مقيه هاي معلن كوا هين دونا في هاي لحظة. يوسف عبد الله محمد. محمد إسماعيل أحمد. زكريا محمد علمي. زكريا محمد علمي ومقيه هاي معلن كوا هين. عباس عمر محمد. مقيه هاي معلن كوا هين. عبد الكريم باشا إسماعيل. مصطفى حمزة محمود دنبيل. saasay inoogu dhan tahay. Jazakum Allah khayr.